السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتي شرفت الله سoo dhawaada janaalkiina deeqa kuisiin. maanta waxaan noo sidaa bakaylo lasaanyo sidii lasaanyada camal loo sameeyey ama pizza bakaylo labada waa dhihi kartaa. waa cunto caruureed haddaa ku jirta iscaateen insha allah ha cunin adiga wax kale maalintaas sameyso waayo cuntadan waa cunto nafaqo ku dheelitiran tahay loogu talagalay inay ilmaha ku cayilaan oo qadab buuxda u noqoto lafaha u dhisto maasha allah inaba caadi ma ahayn. way jeclaadeen caruurta badanaa mar kasta waa sameysanaa laakiin waan yareeyaa adii bishii 2 jeer 3 jeer camal ugu badnaan waayo aad faad u tahay ma fahanti. baradho iyo hilibkii aan ka maqnayn farmaajadii ku jirto yaanyadii maasha allah isku dheelitiran aad iyo aad waa kana. hadda waxaan galaynaa sidii loo sameynaayo baradhadii ayaa si fiican u soo dhaqay waa ujeediin digsigaan kusoo guranayaa waan karinayaa ilaa ay si fiican u bislaato. fargeetidaa gelinaysaa saa ku ogaatid inuu ku jilcadiyo in kaleeto oo biseele tahay waayo ma rabo in adeeg dhexda ka yeelato. waa kaa way kasoo dhacday dhaladaan soo saartay kadibna koob alaale koobka haysatid ku ismaash gareey burburi inay waxaan rabaa falaad noqoto. qubkana ha ka fiiqin fadlan qubka ha ka fiiqinina waayo waa nafaqadii dhameed maqaarkaasi ku jirta lagama qaado. waa inaa saas iyadoo ah ku karisid kuna siisid proteinkeeda saas ku helaysaa. hilibkii aan dab ku soo kariyay idama tusi markaa soo karinay waan jarjaray biyaa dab kala soo saaray wuu soo dhamaystay spices yar aan ku soo daray kadibna waa soo shiiday. mashiinkaas qofka hadduusan haysanin dhib ma lahan hilibkoo shiida waan soo gadan kartaa waa saaran kartaa ani laakiin mashiinkaas iyaala aan ku shiitay. waa ujeedin yaanyo aan soo kariyay yaanyadan anaa gacanta kusoo samaystay waa yaanyo iyo basal iyo xawaajiga la dhaho oo bisada loogu talagalay magaciisa iga maqan afwan waxaa la dhahaa Italian herbs sidii waxa waa reexaanta bahal u carfaayo waa carfoon. waa kaasa hilibka soo saaray hadda kadibna yaanyadii markaa saaray hilibkaan saaray soo ujeedin waa layers baradho yaanyo kadibna hilibka dusha ka saaray kadibna farmaajada ayaa ku soo xardhaysa ka buuxi farmaajada maasha allah. ovenka geliyay 350 wuxuu ku jiray 15 daqiiqo waa ka golden brown ka soo baxay aad u qurux badan. cuntada awalba lama rabin inay la kariyo waayo cunto diyaarsan oo karsan just waa isku kulleynaayo ma fahanteen. haddana waa kaasa way ka soo dhacday iyadoo ka soo maasha allah inaba caadi ahayn. halka aad soo gaarteen waxaa idin leeyahay fiidiyoyaasheeda meel dheer gaarsiiya channelkayga insha allah. waxaan jeclahay inaan kusoo gudbiyo waxyaabaha badanaa Soomaalida ay karsanin oo ilmaha oo qurbo joogta ay karsadaan idinkana iga barta insha allah. anigana waxaan rajaynayaa inaan idin faa'iideeyo channelka waa channelkiina insha allah. gacmo furan kusoo dhawaada fiidiyoga xigo waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق كان الله بكل شيء عليما.